waxay ahayd astaan iyo baalcudoon oo ay Soomaaliya ku soo kordhisay taariikhda Afrika waana hab cusub iyo hanaan dimuqraadi ah oo dhammaan ka soo qaybgalayaashii caalamka madaxdii Afrika iyo bulshooyintii deehaanaysaba ay gorodda la raariciyeen waana bisayl qarannimo iyo rajo dawladnimo oo Soomaaliya iyo Soomaalidaba u bidhaantay bogan cusub oo dhammaan ay ku amaanan yihiin madaxdii ishareere taagnayd shalayna gacmaha isqabsaday ee isdhinac joogay caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa muujisay bidhaaminta dib u yagleelida qarankii agoomay 25 sano ka hor hadallada madaxdii Afrika iyo matalayaashii beesha caalamka ayaa laga dhadhansan karay in Soomaaliya dawladeeda iminka lagu qotomiyay rukumo adag oo ay sheeda ka eeganayaan shacab ilaashta iyo hoggaan daryeela intaba waxa weedha taariikhda iyo sooyaalka galay laga qoray oo mudan in diiwaano adag lagu kaydiyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed kuwaasi oo hadallada afkooda ka soo baxayay marka laga reebo waxqabadkii dawladahooda ay isdul taagayeen guubaabada shacabka oo laga dhadhansan karay wadaninimo balse u baahnaa in lagu dhageysto dhagalaab u duleelo madaxdan ayaa dunida tusay in la aasay ficiladii xumaa oo beri halku dhig u ahaa Soomaaliya hase ahaatee dadaal lagu bixiyay juhdi dhiig ku daatay oo si qayaxan iyo si dadbanba halgamayaasha qarnigan ay u soo dhiraandhiriyeen lagu gaaray Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay Soomaalida maanta iyo shalayba ugu astoobeen halgamayaal qaran ashqaraar ama kaaga ay caalamku ka qaadeen xafladii maamuuska qurxooneed ee maanta marka si guud looga yimaado hadalladii u badnaa hambalyada iyo dardaarnadii madaxdii hadashay ee Soomaali iyo ajnabiba lahaa haddana waxay ahayd tii uu jeediyay madaxweynaha cusub ee maanta lagu caana shubay ee Soomaaliya mudane Farmaajo oo isaga muujiyay dunidana tusay heerka ay gaarsiisan tahay inta uu ku kalsoon yahay shacabkiisa iyo waxqabadka hadii la tayeeyo ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya hase ahaatee hadalladii muujiyay dareenka taabtay dhiigga muwaadiniinta Soomaaliyeed ee runtii ruuxay qalbiyada shakhsi walba oo ay ku jirtay caqiidada wadaninimo ayaa ahayd Soomaalidu waxay u baahan tahay dawlad u roon oo aan raran dawlad u shaqeyso oo aan ka shaqeysan iyo oraahyo sal iyo baar mudnaa in lagu dhigo baal dahabiya arrimaha sida aadka ah loo sugaya ayaa waxay ahayd la macaamilida wadamada jaarka ah iyadoo aan la hilmaamin sharaf eegida Soomaaliya iyo dhowrida arrimaha masiiriga ah oo ay ka mid tahay ilaalinta qarannimada waxaana uu madaxweynaha la aaminsan yahay inuu yahay Erdogankii Afrika ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si qayaxan uga hadlay siyaasadiisa ku aadan habka iyo hanaanka wada shaqeyn ee uga furan isagoo ku soo koobay iskaasiga jaarnimo oo saldhigiisu yahay ganacsi dhaxmara Soomaaliya iyo dalalka deriska tayeynta ciidamada ayuu sidoo kale unug aas-aasa uga dhigay siyaasadiisa waxqabad ee madaxweynaha la caleema saaray ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar uu khudbada caana shubkiisa uu jeedinaya waxa uu soo hadal qaaday uuna ka hadlay ururka Al-Shabaab waxana uu ugu baaqay inay qaataan nabadda oo la soo dhaweynayo da'yarta qoryaha ay deegta u sureen kuwa lagu xiro baaruudda qaraxda ee isdila iyo kuwa u heelan inay Soomaaliya ka sii dagaalamaan waxana uu dhamaantood ugu baaqay inay qaataan qarannimada iyo boga cusub ee Soomaaliya u furmay haddii ay diidaanna waxa uu tusaale u soo qaatay in Soomaalida ay ka go'an tahay horumar iyo qarannimo cid hor istaagi kartaahi aanay jirin Daesh iyo Al-Qaacida ayuu Farmaajo u sheegay in Soomaaliya iminka aan uga furnayn qaab kale ay uga sii dagaalamaan isla markaana uu u bilowday gudcur ay adag tahay inay helaan ilays ay ku humaagsadaan jaarka Soomaaliya ayuu qeexay inay ka fishaan iskaashi iyo ixtiraam qudhowdana looga baahan yahay mid u dhiganta taasi oo meesha ka saaraysa faragelintii laga caban jiray markasta si hoose looga dago caana shubka idlaaday kadib madaxweyne Farmaajo ayaa waxa hor yaala dal gacmo shisheeye ay ku wada jiraan maamulka federaalka ku abtirsada oo isqoonsan aasida qabyaalad wax lagu qaybsado iyo gaarsiinta Soomaaliya qof iyo cod doorashada soo socota sugidda ammaanka dalka oo aad looga deerinayo dad halsan oo ay abaar la degeen oo runtii ah arrimahaasi markii la eego
filasho badan iyo hawl adag oo la oran karo way adag tahay in si siman 4 sano oo qura wax looga qabto balse madaxweyne shalay waad ficil qurxoonayd maantana waa hadal wanaagsan tahay balse ogow shacab daalan ayaa ku caleema ruuxay oo wax qabadka sugaya